dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada u ah dalka Soomaaliya ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay maalinkii labaad ee Ciidul Adha iyagoona si weyn ugu damaashaday xeebta Liido oo kamid ah goobaha loo dalxiis tago warbixintani waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar. halkan waa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho maanta waxa uu soo dalxiis tagay kumanaan qofood oo ka kala yimaaday degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale dadka halkan yimid waxa kamid ah dad badan oo qurba joog ah oo muddooyinka ugu dambeeyay dalka ku soo laabtay dadka sidoo kale waxay isugu jiraan haween caruur iyo waliba dad waaweyn qaar kamid ah dadka halkan u soo dalxiis tagay ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan qaabka ugu damaashadayaan halkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وماريا محانا جوغا مقدشة حيبتا ليدو عيد وناكسن قيارتا إذا all my family وارد كيغا خاصة سلامة يا نيروبي جوكتو وحان كيما هذا نيروبي عيد وناكسن السلام عليكم بان أفرح صناي وعيان كايستني ويحان كايستني حمر معهن وميل سيفة وميل باشارة محان كنا هاي ليدو يجوز درواتين ناكسواتين وفرحتنا صناي dadka dibadaha joogan waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Mail safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurub ku jooga waxaan leeyahay Mareykanka everybody meelaha joogan wadanka qurbaha wadankeena imaada. magacaygu waa Faisal Ali Nuur waxaan joogaa xeebta Liido waxaan soo maalinta labaad Ciidul Adha runtii farxad gaar ah ii tahay inaan imaado xeebta Liido aniga ku damaashaaday maalinta labaad Ciidul Adha si gaar ahaaneed aniga waxay ii tahay farxad gaar ah sababtoo waxaan bartaa kulliyadda Marine Science inaan soo booqdo badda aan ka soo qayb galo farxadan ballaaran sababtoo ah waxa aan baranayo waxay tahay kulliyadda Marine Science qiimo gaar ah ii tahay intaan bulsho oo Soomaali ah ku faraxsan Ciidul Adha ku dabaaldegaysa ciid maxaan yiraahdaa xeebta beach Liido. Thank you. sidoo kale dadkaan halkan kula kulanay waxa kamid ah dad isugu jira caruur iyo waliba dad waaweyn oo qurba joog ah kuwaas oo ku faraxsan in ay dalka ku soo guriyo noqdaan sidoo kalena ay ku ciidaan. Assalamu alaikum. My name is Hanan. I came from Minnesota. I like to swim. I love Muqdisho. It's very nice. Very nice. Very safe. And safe and pretty. I came from Minnesota, Brooklyn Park, and I came here to see my family members, and I like it here. Assalamu alaikum. magacaydu waa Nurdin waa ka imaaday Minnesota حمرات تميد وعمل فيعن. السلام عليكم مدعي وبلال جامع بلال مرسل جامع مقدشة إمادي منصورة كي إمادي هذا مقدشة هذه هذا وفيعن أنتو حاجونا ليدو وفرحنا هاي وادوالنا وانت وعيد مبارك وميل قرحان حمر سيف وميل فيعن dadka dibadaha joogan waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Mail safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurub ku jooga waxaan leeyahay Mareykanka everybody meelaha joogan wadanka qurbaha wadankeena imaada. Maxamuud Axmed waa gudoomiye ku xigeenka degmada Cabdicasiis oo ay ku taalo xeebta Liido wuxuu u hambaliyay dhamaanba dadka maanta u soo dalxiis tagay xeebta Liido xilli maanta loo dabaaldegayo maalintii labaad ee munaasabada Ciidul Adha. muslimiinta meel walba ay joogan gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Cabdicasiis waxaan leeyahay ciid wanaagsan عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله عيدا عيد هذا إله نوجرسيو نبضان يهرمر كان متكسي وناكسن runtii sida u jeegtaan waxaan u diyaar garownay inaan maartay aan xoojino ammaanka xeebta Liido oo iskugu imaanayaan 17 degmo gobolka Banaadir dadka ka socday qurba joogta dhamaantood oo ogtiin dadka aan ugu talagalnay inay noo yimaadaan laba jibaarkeed ee maanta noo yimaadeen maamulkan wuxuu diyaar u yahay dadkaas inay soo dhaweyso
ammaanka magaalada muqdisho oo haatan ah mid aad u wanaagsan sidoo kalena la isku halayn karo ayaa sababay inay dadku u dalxiis tagaan meelaha ugu qurxoon magaalada oo ay kamid tahay xeebta Liido sidaas waxaa qaba gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Muxudiin Ismaan Cariif waxaa moodaa sanad kasta ama ciid ka dambayda isbedel weyn ayaa ka muuqda magaalada muqdisho waxaad arkaysaa amnigii oo sidii la rabo amniga sugaya sida booliiska nabad sugidii oo isugu jira kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon dhammaan waxay xoogga saareen dadka damaashaadaya ama dadka dalxiisaya ee amnigooda la waxyeelayn annaguna ka maamulahan waxaan u taaganahay 24 saac in si ugu wanaagsan lagu ciido lagu damaashaado lagu dalxiiso marka waxaan leenahay sanadkaas tartiiskan waxaan leenahay barwaaqo iyo balfasha barwaaqo xeebta Liido ayaa sidoo kale waxaa ku yaala baarar waaweyn oo ay dadku ku nastaan marka ay ku dabaashaan badda maxamed kaafi sheekh abukar Somali Cable TV xeebta Liido magaalada Muqdisho